اللي يلاحظوا در محوية هاي در ودر ودر إير سمالة مجا عيسى وين وأتشوي أتشي هذا مغش مجا عن أتشي هذا مغش ودروي وحويان حير أتشي بالليل هذا شبويك وحلقوا معمولا حير أتشي تدخل أتشي بإسكاليين ولا أتشي وايو أتشي ده ودروي وإن لوجر تهرت أتشيكو إنه هيري هاي مركز در ليلة هذا أما المعتشي وأفر تأي كليهين وحوية ومدوبدر وعيسى وتغانان مدلوك در وسمرون ينمن حقا كونفورت الدجن إثيوبيا با مهدر وصور يحنفتره حنفتره وحل إلى محمد حنفتره وإساق محمد بيمال محمد قرآن محمد واللي كان قرأها للدقاء يبقى جمال محمد وريه هيرانة يقلاف وحويان أفرت الإمام محمد سيدا ويان مركي نقطه مدحوين الدر ومحمد مدحوينه يعلي مدحوينه محمد مدحوينه عرضه علي محمد مدحوينه لمن كان مقال دلي إساقة قيب تأوين قيبها أوين قيب كمذا دلي وهبر مقال محمد مدحوينه يأكشه يا واحد يسكوي هذا محمد مدحوين لمن كان شيدله ورديله خاك بدن وبورد كوتشيرله ليله قرالة ترى بدني وحويان وعلي مدحوين ويان علي مدحوين دروي مركز در هرتا سيدا وكلا بحسن يهي وسيدا لفيه سين وانين كلا شاقي عيسى واللحوية وذو كلا صعودتا اللح وضيوي سيدا صورتا المدر يؤبت كودي سيدا ويان هديا نراهنو محادر kala kaxeeyay oo beelaha la mid ah daarood yahawi u midaysan yihiin dirna u midoob waayay dir wuxuu ahaa dad la gali waayay waqtigii gumaysigu uu gali waayay oo boqortooyina waqtiga boqortooyinkaasi ka hor gumaysiga ay jireen waxa kamid ahaa boqortooyadii waamo madaxweyne dir ay lahaayeen ee wardayda waliba boqortooyadii waaqloobay ee mahadir ee biyamaalku ay lahaayeen boqortooyadii mahadir ee isaaqu ay lahaayeen ee herar boqortooyadii ciise iyo godobirsay ka dhaxaysay ee awdal boqortooyadii ciise iyo haddana gurgure ka dhaxaysay ee cifad ee diri dhabo boqortooyadii shawa ee cali madaxweyne boqortooyadii baali ee cali madaxweyne بالي تنعفت يهرر ويسلاهين تدوبدا بقرتويو هادر كوميسيغي كو دد لا غلي وايي باي هايين او لا قبن كري وايي قصب waxay noqotay marka in la qaybiyo lagana qaybiyo xagga dhaqanka iyo abtirka si loo kala fogeeyo oo ay dadkan waligood isku wacyidamin sida daraadeed gumaysigiina wuxuu noo raacay dadkii Soomaaliyeed markii xurriyad la helay halkii gumaysigii ayuun bay ka sii bilaabeen waxay noqotay in dir la dagaalamo in dir la kala ilaaliyo in dir la kala fogeeyo in la yiraahdo maxad sutiin in la yiraahdo ninka isaaq iyo ninka biyamaal maxay bay isu yihiinba halka in la yiraahdo waxaba jirtay dawladii hore in la yiraahdo isaaqo dirmatid إلا يا ذو قد بيرسو درمتيد إلا عيسو درمتيد إلا يا ذا عكشو درمتيد إلا درب إن لو صور هيبو خير يرقص الرأى يا أنه قاتنو نلقف تشكر واي هورت الرنت مركا لقى هالليو وحويان نلكي أين أصوى كعنو نلكي اللي هذا بريتش سومالي لامبريتيريتوم دوا أكتين يا ماجورتي أوي تدكو قبضا وي شبوتي أركتي حبتك بلو إلى إيا هدافمو هل غير عيسى اللي يلابا داتسن
dadkan ormaha id arkaysaan ee kiliilka afraad la yiraahdo boqolkiiba 80 waa madaxweyne dir boqolkiiba 80 madaxweyne dir dhulkan aad arkayso ee koonfurta goboladan ka soo bilow magaaladan la yiraahdo bari wadanka gobolkan bari boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba nugaal boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba 45 baan gobolka galguduud boqolkiiba 40 baan gobolka hiiraan boqolkiiba 45 baan gobolka shabeellada dhexe boqolkiiba 40 baan gobolka banaadir boqolkiiba 45 baan oo banaadir maxay tahay luqada carabiga bal macnee bina maxay tahay bina waa building waa dhismo dirna waa dir banaadir boqortooyadii mahadir meeshii ka talin jirtay fadhiyi jirtay way waa banaadir kelmadda banaadir lafteedaaba sidan ku samaysanba waa banaa u dir way dhismihii dirka way marka sidaa wax dashay okay gobolada shabeellada hoose boqolkiiba 95 jubbooyinkana boqolkiiba 80 labadaba jubba marka lagu yiraahdo markaan u soo leexano waxaan maanta la isku hayaa maxay tahay waxa maanta la isku hayay dib u heshiisiintan aanu maanta u socono shirki Addis Ababa ka dhacay wuxuu ahaa dawladda waa ku soo dhaweynaynaa annaga oo systemka kala shaqeynayna systemkuna uu yahay kii markii hore annagu aanu dirsanay oo wasiirka iyaga arrimaha dibadda Foosiye Xaaji Aadan balaanka wanaagsan ee ay u leedahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo khibradda siyaasadeed ee qodada dheer ee ay leedahay ayaa Soomaaliya maanta hagaysa ra'iisul wasaare ku xigeenka isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga xaqiiqatan Soomaaliya wajigan cusub ee maanta u furmay waa Foosiye Xaaji Aadan baa wadada lugta u saartay marka xaqiiqada laga hadlayo waana gabar dira waxaan rabaa inaan madaxweynaha halkan ka salaamo inaan dhammaan guddiga fulinta oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo ku xigeenkiisa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga dhammaan wasiirada waxaan rabaa horta inaan halkan ka salaamo dawladda golaha baarlamaanka waxaan halkan ka sheegayaa marka hore annaga dawladda waa ku dulmanna sababta oo ah afarta janan ciidamada midna ma lihin jananka nabad sugidda ma lihin haddaan dirnahay jananka booliska ma lihin jananka militariga ma lihin jananka muxuu ahaa haddaan leeyahay asluubta iyo ka booliska iyo ka military afarta ciidan ma lihin jananadooda agaasimayaasha madaxa bannaan ma lihin sufaradii dhuub waa kan laga qaaday maxaa dawladda santarkii ay beesha dir horta ugu tala gashay sideedaba haddaan u soo noqono shirkan aanu u socono maanta waanu tagayno aniga habiilba aanu ka qayb qaadanayno nabadda waan soo dhaweynaynaa gaal iyo muslimba wixii nabadda hortaagana waan cambaaraynayna laakiin nimankan federaalka la ordaya hal baan ka leeyahay al-shabaabka iyo argagixisadana hal baan ka leeyahay nimankan federaalka la ordaya adduunyada federaalka 40 iyo dhowr dawladood baa federaal ah caalamka federaalka aan qaadanaynaa waa kee horta maka Mareykanka qaadanaynaa maka Kenya qaadanaynaa maka Ethiopia qaadanaynaa haddaan qaadano ka soo qaad federaalka Kenya hadda ay tahay annaga dir gobol dhan baan leenahay taana rivaliyad waa federaal misielo oo ay beesha isaaq hadda kursigii koobaad haysato oo Eastern iyo Tana River labadaba annaka iskale haddaan dirna waana gobolada raacay qolana ay xeebta muslimka raacday markii in fidii la qaybiyay qolana ay raacday Kikuyu Island waxaan ku sheegayaa haddaan nidhaahno bal hadda federaalka Kenya gobolka North Eastern Province la yiraahdo ee Soomaalidu ay degan tahay ee markii Tana River iyo Eastern laga reebo ee laga bilaabo magaalada Garis ilaa iyo Mandera gobolkaas
كوبيو طبعا مدنا كسوقش وانا كن يلبا بقولو كيلومتر مركا اي نقطه سنت رومكا from Nairobi to Gizi وصدح بقولو كيلومتر وحكسو قلا صدح بقول وحكسو قلا أفرتن يلبا مدنا وانا صدح بقولو كيلومتر محيالي دقاليه بايالا ورشديه بايالا بيريه بايالا دتكي بايالا حقنا ودول وين ودي سرتيه وحبا أقولين سادرادد بكوبيو طون مدنا وجس وجلسة حقنا نقاليه يدتكي بايالا الدنيا ما هو حلوقة بصدا وهو حلوقة بصدا والما ومنفض قبل كرشة الله ده صادا أصور دعاء وحكدت بدن يهي بري نقال مدب يجل جدود ولا يسكت دريبو كدت بدن طلال كي وقدم بيجي قياستي وزارة الربا دي بدون أنو كشقيني عدي تلالك وقدم بيسي فرق سفرية مالين اللي يرادو أوصل إليه شوكا أيوة هنيك تلالك وقدم بيجي عروتي اللي قد تلالي يا لقوه قاد لابد تشوبا مركا الله إيغو بالكسو قاد دقم حقر هذا اللي يرادو محمد سياد مركو سيب حيي ومقعابي باجرتا iyo degmo badhaadhe la yiraahdo laba reer lagu kala sheego oo midna runtaanu sheegaynaa bartireer lagu sheego midna maqaabal lagu sheego iyo degmada Jamaame balisu miisan ma isku dhaqaala ma isku dadba marka ma isku tiray qaadan karaan oo ma isku tayay qaadan karaan ma qaadan karaan 300 oo deegaan in ka badan oo dhul beereeda baa Jamaame hoos imaanaysa oo tuule waliba gabigeeda ay jamhuuriyadu tahay jilib sida oo kale 70 tuula hoos imaanaysa magaalada weyn oo sheekhaal nala degan tahay mooyee 70 ka annaka iskale 300 Jamaamana annaka iskale faro maqdisho halka Madiina marka aad ka bilowdo ilaa iyo xuduudana cidinima dhex degana waxaanu isku haynaa soone marka la yiraahdo talyaanigu soonu sameeyay meeshan ka wada hadlayna waa banka jiira iyo afmadow ayaanu ka wada hadlaynaa raggan soo doobdhabaya ee halka durbaanada soo tumanaya meesha laga wada hadlaya waxay noqonaysaa banka jiira iyo afmadow dhulkan Kismaayo ay ku taalo ka wada hadlimayno way shaqaba kuma ay laha Kismaayo meesha ku taalo waxa la yiraahdaa cal iyo kafar xeebta oo dhan kafar baa la yiraahdaa dhulka barigana cal baa la yiraahdaa qodaxda inta leego looda iyo adigu laba raflu maba ku noolaan karo nimankan soo orday dadkoodu laba raf lay dhaqdaan dhulkan cal la yiraahdo geela ku dhaqma nimankan la degani waa gaala jecel waa nimankan la yiraahdo doqon diide waa nimankan la yiraahdo curmale waa nimanka ayuun baa nala degan dir markaanuna gaadsan madaluug hadaalad mahaye fuqu umar guriyaha magaalada markaad eegto yaa ilma Cabdilaqoos ka guriya badan ilma Cabdilaqoos iyo xasan dheerahan reeagoon muxuu ahaa Umar Muuse yaa ka guriya badan oo ka ilma Cabdilaqoos yiin waa niman dabal Muuse yaa ka guriya badan yaa ka hanti badan habeen baan guri meel ku dhistay oo ku hoyday miyaa dhul iyo magaalo lagu qaata waxaan leenahay anagu nabad baan rabnaa nabadaan u soo jeedsanaynaa dirna wuu midaysan yahay bariga Afrika dirka degan maanta waa cusub baa u bariyay annaga hoggaanka u qabanay waa isu keenaynaa aniga Habiil Ismaaciil Umar Geela baaq baan u diraynaa gogol iyo shir dir leeyahay ayaanu gogol dhigaynaa Djibouti niman baa lahaa jigjigaanu gogol dhiganaynaa waa amaanaynaa jigjiga gogol dhigta jigjiga nagama lihidin annaba waa dhigan karnaa dad dhiganaysaan dhigta wixii ka soo baxana waa qiimeynayna annana Djibouti baanu dhiganaynaa wixii ka soo baxa waa arkaysin cidna dhulkeeda kuma socono cidna aliyadin min waxaanu soo jeedsanayaa nimankan koonfur galbeed la baxay meesha ka qeylqeyliyay koonfur galbeed anigu ma doonayo nimankaas digilka waa digil horta sidiisaba digilka aniga la iga fogeynayo ee qabiilka kale loo bixinayo soo jiidama jiida waa cali madaxweyne dir quraanyowna waa biyamaal iyo isaaq walaalkood dadka ay leeyihiin anaga le ma kuwaasay ku darsanaya miyay waalanyi magad marka la yiraahdo midiflaha macallin weyna waayo miyaanu nin isaaq ahayn
liisa miyaanu gaadsan iyo arab ahayn liisaan miyuunu boqolkiiba 80 dir ahayn dadka la iga fogeynaya ee koonfur galbeed loola baxay halka Shariif Sakiin u sii wato yaaban garan lahay ha ahaato koonfur galbeed in la sameeyo kama xumin qaabkii anaku aanu u wadnay sida ma yahayn si ka wanaagsan bay ahayd laakiin waa ku degdegteen waxaana uun kamidtiin waxan wax boobaya laakiin dad aanu hadda anaku dhibaato u hayno ma tihidin marka laga reebo ninka gubernatooraha marka ka ahayd dadka gubay maalweyd wuxuu shir ku qabtay Oslo oo nimankii Mooryaanta ahaa ee dhulka iyo dadka baabi'in jiray uu u yeedhay oo uu halkaas ugu yeedhay kaasna waa la xisaabtay hadda xamar baan ku socdaayo waa is arkaynaa waxaan ku yiri qoladii halka joogtay dirka ahaa markuu isku kendilay inagii nimanka habargidir walaalaha inay irirka isku kendilay haddana qurbaha isku kendilina fidmadiisu hayna dhaaf alfidnatu ashad min alqatl dadko dhan ana suldaan u ah wuxuu hayna dhaafo baan ku yiri sidaas aan iskaga asturno nagu dhaaf isagu waliba quraanyo mee waa tuuf way waa tuuf iyo quraan garu waa coalition waa laba qolo isku darsanto abti isu ah marka waxa weeye tuufka ya ay way sidaan noolama dhaqmeen hadii nin quraanyo way dadkii siiyay ee xukunkan u qaban qaabiye Cabdikaafi nin leeyahay quraanyo yaa nagu baroortay aniga Cabdullaahi Ismaaciil oo yiri waligayo meesha jaga kabaanu qabanay maanta hana loo dhiibo farsoolay iyo awdheeglay in yar ka degan marka sanu niri orod noqo anagoo Nairobi joogno hada waba kaaba anagii baa meelan ka istaagnala geel ninkaad soo gelisaa ka bixiyay waxaan ku soo koobaynaa Somaliland walaalaheen ruwaaqada iyo horumarka ay gaadheen aad baan u soo dhaweynaynaa Soomaaliya oo dhan baa degan dir kala degan daarood baa degan kuwa dhul kale baa jirta Somaliland waa dawlad ka dhaxaysa dir iyo daarood iyo hawiye hataa fiqshini baa degan oo muxuu ahaa cid kasta degan annaga biyo maala waa degan oo madiigaan soo dabruba biyo maalma magaalada bartankeeda Hargeysa laga doortaa cid naga leh ma jirto marka waa soo dhaweynaynaa Djibouti walaalaheen weeye aad baan u soo dhaweynaynaa dhinaca dhaqanka dadka waa ka midaynaynaa siyaasadahana waa lagu kala duwanaanayaa shanta dal ee Soomaalida gumaysigu u qaybiyay dirka degan waanu midaynaynaa wuuna midoobay haddana shirka anaku nabad baanu la tagaynaa madaxweynaha iyaga noo yeedhay iyo wasiirka iyaga arrimaha dibadda nabad baan la tagaynaa system kana waanu ilaalinaynaa dawladda Somaliland madaxweynaha guddiga fulinta golaha baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida dhammaan golaha guurtiga xubnaha muxuu ahaa siyaasiyiinta aqoon-yahamiinta bulshada dadweynaha dhammaan halkan aanu ka salaamayna waxaanu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo waxaana Soomaali leenahay ku dayda Somaliland ku dayda oo sida Somaliland horumar sameeya oo sida Somaliland nabad dadka u horseeda oo sida Somaliland dhaqaale tabca ayaan leenahay Somaliland waxaanu leenahay barwaaqooba waxaana tihiin SSDU idinkay idin ilaalinaysaa